hal xiraalaha labaad ayaan idinku soo dhaweynayaa saaxiibayaal aad ii dhuuxa hal xiraalahani kii hore waa ka adag yahay haddana waa ka jilicsan yahay waxaan rajaynayaa waliba waxaan xilaalayaashan aadka u jecelahay buu ka mid yahay inaad garan doontaan saddex nin oo walaala ayaa damcay bal inay soo urursadaan aqoon iyo cilmi saala ajligeed safar bay u baxeen ilaahayna waa bariyeen inuu ilaahay siiyo waxyaabo ay dadka kaga soocan yihiin oo aqoon iyo cilmi iyo waayo aragnimo nimankiyo buuxa ayaa yimiday waxay furteen xafiis weyn saddex kursina way ku fadhiisteen dadka oo dhan baa u iman jiray laakiin saddexdan nin saddex ciladood ayay kala hayeen mid kamid wuxuu ahaa beenaale ka labaadina wuxuu soo gudbiyaa run ama been ka saddexaad waa runlow laakiin dadkii ma kala garanayaan iyagoo dadkii dawaqsan oo yaaban ayaa waxa u yimid nin oday ah oo da ah kaas oo aqli iyo magarasa way aragnimada saaxiib u ah wuu yimiday su'aashii ugu horeysay ee uu weydiiyay waxay ahayd saddexdiina keebaa kursiga dhexe kee ku fadhiya su'aashaas uu weydiiyay kii bidixda xigay ayaa wuxuu uga jawaabay waxaa fadhiya walaalkii runta sheegi jiray kii dhexda fadhiyay na wuxuu kaga jawaabay waxaan ahay ama waxaa fadhiya walaalkii run iyo been labadaba sheegi jiray kii koornaha xigay bidixdana wuxuu kaga jawaabay waxaa fadhiya walaalkii beenta sheegi jiray odaygii waa u gartay ka beenta sheegaya iyo ka runta sheegaya iyo ka labadaba sheega waa uu kala gartay sida uu ku gartay iyo idinka laftirkooda saddexdaan nin keebaa beenaala keebaa runloowa oo runta sheega keebaa labadaba sheega idinka la iska sugaya waxaad haystaan 10 daqiiqo waxaan rajaynayaa jawaabtii inaad haysaan asxaabay walaalka bidixda xigaa waa walaalkii run sheeg ahaa ninka dhexda fadhiya waa ninkii beenaalaha ahaa ninka koornaha midig fadhiyana waa walaalkii run iyo beenta labadaba sheegi jiray haddaba say ku dhacday ninkan bidixda fadhiya waa beenaale sababtoo ah isaga ayaa yiri walaalka dhexda fadhiya waa walaalkii runta sheegi jiray sidoo kale ninka dhexda fadhiyana waa beenaale oo isaga ayaa yiri waxaan hay ninkii run iyo beenta labadaba sheegi jiray sida la ajligeed kan midigta fadhiya ayaa noqonay walaalkii runta sheegi jiray isaguna markasta waxa uu sheegaa waa run oo waxa uu noo sheegay inuu ninka dhexda fadhiya yahay walaalkii beenta sheegi jiray marka ninka bidixda fadhiyana wuxuu noqonayaa walaalkii run iyo beenta labadaba sheegi jiray